السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتين صاحبتي مي في عنتين مانتا iyo qiso kale oo cajiib leh. Maxaa la qisadan waxay ka dhacday America. Wiil yar oo 12 jir ah oo Roy la dhahayo oo la degan aabihiisna uu yahay dadkan cabtooyda ah oo qamarada cabaan oo waqti aan u heenin. Marka wiilkii wuxuu ku weynaaday asoo waalid haysto aabe haysto inuu yahay aaba la'aan. Markasta ma haysto qof caawino iyo markasta ma haysto qof maxaa la dhahaa oo noloshiisa meesha marayso ka warhayo. Marka waxaa dhacday wiilkan magaciisa Roy la yiraahdo in uu maxaa la dhahaa oo naftiisa asiga oo maxaa la dhahaa u diyaar gareeyo sidoo ku noolaa lahaa. Laakiinse intaan qisada idin bilaabin waxaan idinka codsanayaa subscribe-ka hadaan weli ii saarin subscribe-ka ii saar haddii aad hore nala joogteen jazakallahu khayr sheekadana ku sii soconeynaa. Marka wiilkii wuu isdabari jiray meelo iska socon jiray wuxuu sameeyay wax ka warhaaya ma laha. Wuxuu sameeyay maalin maalmaha ka mid ah xaafadooda waxaa ku taalay carwadii oo tagay. Markuu carwada tagay wuxuu arkay bahal yar oo cheetah dhahaan annaga waxaa dhahnaa haram cadkii oo helay oo meesha ka arkay wuu la ciyaaray meeshuu iskaga soo wareegay wuu soo noqday gurigiisa oo soo noqday. wuu fikiray wuxuu yiri meeshaan waaba ka helay bahalkaanitan waaba jeclaaday waxaan rabaa inaan meesha shaqo ka helo. marka meelahan waxaa ka dhacday ilmaha dhalinyarada oo teenage-ka waxaa la siiyaa maalintii maadaama iskool dhigtaan ama weekendka camal Saturday iyo Sunday waxaa la siiyaa 2 saacadood ama 3 saacadood meel kasoo shaqeeyaan lacag dadka kale waaweyn la siiyo wax ka yara la siiyaa dadka caawinayaan. marka shaqadii raadsaday wuu helay. wiilka markasta markuu tago wuxuu la ciyaaraa shaqadana wuu qabtaa wuxuuna waqti siiyaa haram cadkii oo waqti siiyaa oo la ciyaaraa. wuxuu ka helay jaceylka oo gurigiis ka waayay haram cadka oo ka helay. saas siduu ahaa maalinka dambe wuu fikiray wuxuu yiri waxaan sameynayaa haram cadka horaa u sii qaadanaabo. wuu soo qaatay gurigiisa ku qarsaday. adiga 2 sano laga soo wareegay intuu meelaha uu wareegayay 15 sano markuu gaaray oo weli nolol uu haysanin oo waalidkana uu ka warhaynin wuxuu sameeyay wiilkii wuu soo dhuuntay wuu soo jabsaday bahalkiisii yar oo soo qariyay haram cadkiisii soo qarsaday. wuxuu aaday meel hotel oo markaas 80-yadii ahayd hotel oo markab ah oo dadka dhan ay u ordaanay wada tagaan oo sameeyaan maxaa la dhahaa waxaa la sameeyaa oo kale adduunka si loo joogo marba waxaa la jecel yahay. hadda YouTube lagu mashquulsan yahay, TikTok lagu mashquulsan yahay, social media lagu mashquulsan yahay. aniga anba soo galo jeedin. marka waqtigaas waxaa lagu mashquulsanaa dadka inay tiyaatarka aadaan. marka 80-yadii tiyaatarka maadaama la jeclaa hotel weyn ah waxaa laga dhex furay markab. meesha waxaa lagu soo biyaa showyaal kala nooca lagu soo biyaa. marka meeshuu tagay bahalkiisana meeshuu ku qariyay showgiiyo fariistay meesha tiyaatarka ahayd oo fariistay nin meesha waxaa joogo oo 3 sano asi ka weyn 18 jir ah. wiilkii 18 jirka ah wuxuu sameynayaa indha sarcaad sameynayaa wuxuu wataa bakeele yar oo wataa bakeelihii yar cadaayo marba wuxuu ku sameynaa miis u saaran yahay mar wuu daboolaa koofida mar waa la weynaa aday dadkii show loo dhigayaa. saas siduu ahay wiilkii sheekada markay dhamaato loo sabciyay wiilkii uu tagay 18 jirkii uu tagay Roygii 15 jirka soo dhuntay. wuxuu yiri niyo maxaa sameynaysaa yiri waxaan inta saas dhan ma aha waxa u baahan tahay waxaan wax ka qatarsan. haye maxaa u baahanahay waxa u baahan tahay oo yiri cheetah u baahan tahay haram cada u baahan tahay inaad sheekadan keentid si fiican dadka ku sii bartaan. inta ka keenaa yiri soo bax raac yiri wuu waday meesha ku soo qariyo tusiyay meeshaana waxa jiifaabo haram cadkiyo meesha u jiifo. waxaan siinayna dhahay tababaray haram cadkiisu ku sii ACN sidoo uu meesha showgu ugu ciyaar lahaa. markuu haram cadkii oo burunti noqday waxay sameeyeen inay showgu wadaan showgii u dhigeen meel kasta wareejiyeen waaba la bartay dadkii haram cadka wateen waxa la wiilashii waxay noqdeen dad oo waxay noqdeen caan ah. marka wixii sii badbadiyeen xayawaanay ku soo dareen wixii sii badbadiyeen shaqadii badsadeen sanooyin ka soo wareegtay magacoodii la bartay Europe laga soo darbaday. inta waxay u imaadeen tour u imaadeen marka waxay ka dhigeen showyo badan ay u dhigeen magacoodii la bartay sanooyin soo wareegay dadkii waxay noqdeen dad taajiriin ah waxay noqdeen dad oo meesha tagaan oo lacag xoog lagu soo galaayo sidii marka caan fiican ku noqdeen. maalmaha kamid ah nin la soo xiriiray oo millionaire oo lacag qabo oo degan America Las Vegas degan wuxuu qabaa hotel uu qabaa waa nin taajir oo la yaqaano. wuxuu yiri hotel cusub aan furanayaa oo la yiraahdo The Mirage waxaan rabaa ina ila shaqeysaan oo aad shaqooyinkaas dhaaftaan anaa ni siinaa contract hotelkiiga waxaan rabaa inuu holiday meel loo yimaado noqdo
dadka ay holiday u imaadaan, dadka ay fasaxyada imaadaan, dadka ay maxaa la dhahaa dad badan aan yeeshto. marka si aan waxaas u helo idinkaan qarash idin gelinaya, idinkii maxal xayawaanadiina kontraat aan siinayaa, anaa ii shaqaynaysaan. waayay dhaheen 57 milyan aa la siiyey oo kontraat ah. marka la siiyey lacagtii way qaateen, showgi ninkii u qabtaan, meesha waa laisku maxay noqotay waqtiyadaas zaa'ida loo jeclaayo meelaha laiskugu yimaado. sheekada waa meesha kusoo dheeraatay. lacagta markay heleen maxay ku sameeyeen marka? lacagta waxay sameeyeen dhul weyn ay gateen, guryo waaweyn ay ka dhisteen, meelay xayawaanaad ku xirtaan ay subsadeen. waxay sameeyeen 50 ay xayawaanada ka dhigeen, 50 xabo oo xayawaana ka dhigeen, 30 ka mid ah waa libaax. marka showgii sidii wuxuu ku noqdaa caan. ayaga filna laga duubaa, fiidiyoyaala laga duubaa, dad magac leh noqdeen, dad badanaa maxaa la dhahaa rabaan inay arkaan waxay sameynayaan. dadka kaliya ma yaqaaneen xataa oo Los Angeles degan, adduunka laga bartay. marka waxaa dhacday marka maalin maalmaha ka mid ah, Roy baa wuxuu dhigayay show hotel ku dhigayay. wuxuu soo watay shabeel weyn in maxaa la dhahaa oo culeyskiisana ah 200 kiilo u dhigma culeyskiisa, dhirirkiisana 1 qof iyo bar waay. 1 qof iyo bar dhirirkiisa waay markii dhirir ahaan loo fiiriyo. haddii miisaan la saarane 200 oo maxaa la dhahaa kiilo waay. yacni ninkaanetood 3 jibaarkiisoo kale waay culeyskiisa. laakiin saaxiibay yihiin, wuu soo qaaday meeshuu keenay. ninkii aanoo raba show inuu la dhigo libaaxii wuu xanaagsanaya maantaas. marka gacantiisa wuxuu ku suubiyey libaaxii, markuu saa isugu dhaweynayo oo mikrofoonka saa u haysto baa gacanta Roygii laga qabsaday. libaaxii baa waxyar wuu yacni qanjuuf camal, qaniin yar oo qanjuuf ah, asna wuu soo qaaday mikrofoonka yar oo hayo madaxa jug kaga siiyey. libaax baa ku kacdaba, inay ku kacdayo boodayo wuxuu ka qabtay tunka, halkaas kasoo qabtay. wuu soo qabtay, dhulkuu ku jiiday. raggiyaa tilmaameen 4 ninaa soo orday. waxaa laisku dayay inaa libaax laga fujiyo, waa laga fujin waaye, wuu la raftay, waa la dagaalamay. markii la dagaalamay oo laga fujin waaye oo dhiig dhan meesha dhan iswada qabsto, dhuuntan kaga dhagan yahay sida xayawaanada qaar camal ugu dhagan yahay, baa marka dambe 4 nimood way ka fujiyeen. ambulansaa loo qaaday, ambulansaa la wacay, waa la saaray. markii la saaray ambulanska intuu ku jiray, intuu madaxiisa dhiig ka da-ayo oo faashad lagu sii qabanayo, asi waxaa u daran shabeelkiyaa u daran. hadduu shabeel qof kusoo boodo waa la xabadaynaya, waa la dhigaa, haddii kale dad kale uu cunaya. marka taas wuu ogyahay inay dhacayso, ogyahay sharcigu ogyahay. marka intuu meesha ku jiray wuxuu la dagaalamayay oo xoog u hadlaya, maanta dhan kusoo celinayay in shabeelka aan la dilin. shabeelkaas wuu fiican yahay, shabeel fiican waaye, shaqo badan oo ii hayaa, waa ka qaladaa ka dhacay, yaanan la xabadaynna maanta dhan kusoo celinaya. adi shabeelkii wuu fakiyey, mala dilin, waa la xareeyey, meelaa lagu soo xiray. ninkan isbitaalaa la geeyey, dhiig badanaa ka baxay, madaxiisa dhiig badan ku furmay. waxaa ku dhacay stroga ku dhacay, waxaan oo dhinaca marka ku dhaco qofka uun socon karin ama hadli karin camal ku dhacay. 3 jeera stroke kusoo noqday. ishiisa iyo dhinac dhan wejigiisa waa halaabay. marka waxaa la dhahay sidaasuu ahaa. jiro badanaa ku dhacday, dhiig karkaasitood adduunyada dhan ku wada dhacday, sanooyin badanaa kasoo wareegtay. maxaa la dhahaa wuxuu aaday isbitaallo, meel lagu masaajeeyo, meel daawo lagu suubiyo. adiga ninkii wuxuu noqday nin oo siduu ahaan jiro ahayn. marka maalin maalmaha ka mid ah waxaa la yiri waxaa la qabanayaa maanta, dadaa lacag loo aruurinayaa, dad masaakiina lacag loo aruurinayaa, show waa la rabaa la dhigo. wuxuu yiri last show waan dhigaa oo shabeelkii maalintii ii cunayay baan la dhigayaa iyo saaxiibkey, maadaama hadda wax yar aan roonahay, waana kusoo xiraa charity si aan ugu caawino dadkaanito lacagta la aruurinayo, si aan ugu caawino. dad badanaa isku imaadeen, dad badanaa la cazumay, lacag badanaa la bixiyey. libaaxii waa la keenay, asagoo wili cad xoogaa baqbaqaayo. ninkii adi wuu imaaday, libaaxii buu maxaa la dhahaa oo la dhigay, showga la dhigay. maalintii showgii nabaday ku dhammaatay, asigoo dhibaato la isgaarsiinin. dadka lacagtii u aruurinayeen way u aruuriyeen, charitydii sidaasaa lacagta lagu helay. saasaa lagu kala tegay maalintaasitood. kabacdii waxaa yimid covid-19 markuu yimid, asigoo 75 jir ah buu covid-19kii ku dhintay Roygii. saaxiibkiis laakiin markii u dambeysay wuu noolaa. intaasaa maanta ila wadaagaye. rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa raxmadiisa waasic ah inuu jannata firdaws al-aclaa nagu geeyo, annaga idinka, waalidkeen iyo waalidkiin, waalidiinta muslimiin oo dhan. marka saaxiibayaal, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.